kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah xogo kala duwan oo ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheikh tirada golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya waxaa lagu waramayaa in la kordhin doono fariimaha la xiriira 26 Juun oo madaxweynihii hore farmaajo baraha bulshada uga taageera batay madaxweyne Xasan Sheikh iyo Muuse Bixi oo war ka soo saaray wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubaal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaa nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararka aanu ku baahino janalkan aragtidiina halka uu nagu reebo muuqaalkana sii share gareeyo la wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo dhawaan laga helay xanuunka COVID-19 ayaa ka baaqsaday xalay ka qaybgalka munaasabada xuska 26 Juun oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Madoobe oo wakiil ka ahaa madaxweynaha ayaa ka qaybgalay munaasabada isagoona ku hadlayay magaciisa iyo kan madaxweyne Xasan Sheikh ayuu hambalyo u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed aniga oo magacayga iyo magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaca baarlamaanka Soomaaliyeed ku hadlayo waxaan hambalyeynaya marka hore dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin ayuu yiri gudoomiye Sheikh Aadan Madoobe sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyay sababaha uu madaxweynaha uga baaqday munaasabada 26 Juun wuxuuna shaaca ka qaaday inuu xeeriyay in bulshada uu mas'uulka ka yahay uu turo maadaama uu si fudud lagu kala qaadi karo xanuunka COVID-19 waxaan kaloo aan rabaa inaan u duceyno madaxweynaheena hadda culeys ma qabo maadaama uu daruuf daraadeed iskaga dareemay uu imaan waaye aniga ayuu i wakiishay waxaana Ilaahay uga baryayaa inuu caafiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu sii raaciyay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaana sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ay wanaagsan tahay wuxuuna ugu duceeyay inuu Ilaahay ka dulqaado xanuunka sidoo kalena shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan caafimaadkiisa hadda aad ayuu u fiican yahay waxaa laga yaabaa marka uu hadda munaasabada ka maqnaado dadka inay u arkaan madaxweynaha waaba soo kici waayay taabaan weeye ma ahan laakiin isaga oo isle bulshada Soomaaliyeed ee aad mas'uulka u tahay maadaama cudurkan sanqaadkiisa uu fudud yahay inuu isaga maqnaado ayuu go'aansaday ayuu markale yiri Aadan Madoobe oo ka hadlayay xaaladda madaxweynaha Xasan Sheikh oo maalmo ka hor booqasho ku tagay Imaaraadka ayaa kadib markii uu ka soo laabtay dalkaasi la xaqiijiyay in laga helay xanuunka COVID-19 waxayna villa Soomaaliya shaacisay inuu sii wadan doono howlaha shaqo ee qaranka geesta kalena xogo waxaa laga helayaa tirada golaha wasiirada Soomaaliya oo la kordhinayo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo shalay helay codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan dhismaha xukuumaddiisa Xamse Cabdi Barre oo ballan qaaday inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo dalka samata bixin karta ayaa wali wada tashiyo ku aadan magacaabista golihiisa wasiirada xogo ay Hubaal News ka heshay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha cusub uu qorsheynayo inuu kordhiyo golihiisa wasiirada Soomaaliya wararka aanu helnay ayaana sidoo kale sheegaya in Xamse uu doonayo inuu wasiirada uu gaarsiiyo ilaa 30 xubnood halka markii hore ay ahaayeen 26 wasiir qorshaha wasiirka koowaad ee xukuumadda cusub ayaa inuu soo kordhiyo ugu yaraan ilaa 4 wasaaradood oo mid kamid ah ay tahay wasaaradda deegaanka ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada kadibna uu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si loo meelmariyo xukuumadda cusub ayaa waxa horyaala shaqooyin adag oo ay ugu horeyso wax ka qabashada ammaanka iyo xaaladaha abaareed ee haatan ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay isbedel siyaasadeed kadib doorashadii 15 May ee uu ku soo baxay Xasan Sheikh Maxamuud oo mar labaad loo doortay hoggaanka dalka Soomaaliya halka wali daawadayaal nagala socotaan waa Hubaal News ee fariimaha la xiriira 26 Juun madaxweynihii hore farmaajo ayaa baraha bulshada uga taageera batay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wali baraha bulshada uga shacbiyad badan madaxweynaha cusub Xasan Sheikh Maxamuud oo xilkan kala wareegay kadib doorashadii 15 May 2022 oo Farmaajo looga adkaaday madaxweyne Xasan Sheikh oo cudurka COVID-19 dartiisa uga qaybgali waayay munaasabadii xuska 26 Juun ee xuriyadda gobolada waqooyi ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo kula wadaaga baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa shakhsiga ah ee uu leeyahay dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baraha bulshada ee shakhsiga ah soo dhigay fariin ku saabsan munaasabada 26 Juun oo u eg kuwii uu diri jiray markii uu xilkan hayay waxaana labada fariimood si weyn u taageero batay fariintii Farmaajo
fariinta madaxweyne xasan sheekh waxaa barta Twitter-ka la isku diray oo dadku sii faafiyeen in ku dhow 100 jeer halka bogga madaxtooyada lagu sii wadaagay ilaa 40 jeer. Bogga Facebook ee madaxweyne xasan sheekh ayaana sidoo kale fariintiisa ay heshay 480 halka fariinta bogga madaxtooyada la sii wadaagay 190 jeer. dhinaca kale fariinta 26 Juun ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Twitter-ka lagu sii wadaagay ilaa 450 jeer halka Facebook ay heshay qiyaasta lagu sii wadaagay ilaa 4900 jeer. Arrintan ayaana ka dhigan in Farmaajo uu baraha bulshada ku haysto taageero badan inkastoo aan taasina lagu sii qiyaasi karin shacbiyada rasmiga ah. sababta taageerida Farmaajo ee baraha bulshada ayaa iyadoo kooxdii madaxweyne Farmaajo intii ay xukunka joogeen lagu eedeeyay inay dhaqaale badan geliyeen baraha bulshada isla markaasna ay yeesheen dad fara badan oo taageera qaarkoodna dhaqaale lagu siiyay xilligaas. waa sida ay tilmaamaan dadka ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa. waagaga daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Muuse Biixi waxa uu war ka soo saaray wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeedinaya munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa isla markaasna lagu xusayay 26 Juun ayaa ka hadlay arrimaha xasaasi ah oo ku saabsan wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Biixi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay ka garbaxdo Somaliland ayna iska dayso hadallada ku dhisan afmacaanida. madaxweynaha Somaliland ayaa xusay in Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad loo doortay madaxweynaha Soomaaliya uu xogogaal yahay uuna ka rajeynayo inay sii socon doonaan wadahadalada labada dhinac oo marar kala duwan ka dhacay dalka dibadiisa. dowladda cusub oo ay dhisteen iyo ninka odaga ah ee wadahadaladeena iyo xogogaal badan u tirinayno ee madaxweynaha ah iyo hadalka wanaagsan ee mar walba yiraahdaan walaalaheena Somaliland waanu wanaajinaynaa warhana wanaajinine ee aanu kala garbaxno ayaan leeyahay ayuu khudbadiisa ku yiri madaxweyne Muuse Biixi. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in mowqifka Somaliland ay doonayso madax banaanida uu cad yahay balse ee rabaan kaliya in lagu kala baxo miiska wadahadalka. hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo hakad ay galeen wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo aan horey loo dhaqaajin sanadii la soo dhaafay. si kastaba Somaliland ayaa sanadkii 1990 ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale walow aysan ilaa iyo hadda helin waxa ixtiraafa waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Nairobi kadib markii uu safiirka Soomaaliya uu iskaga baxay shir lagu casuumay oo uu ku arkay wakiilo ka socda Somaliland taas oo keentay in dowladda Kenya ay raaligelin buuxda arrintaasi ka siiso dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen Janalka Hubal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtahay nagu soo biro oo kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halka oo nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo dhiirigelin waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka Janalka Hubal News.